xildhibaanada sharafta leh si guud iyo si gaar ah garaad wiilwaal oo iyo wafdigii la socday martisoorna hadda marti u ah annagana marti noo ah dhammaantiin waa salaamantiin maanta markii la hotel baa la furay waxaa la lahaa formalka waa laga bedelayaa meel cashaa iyo hadal iyo baad tegaysaan laakiin weli khudbadihii waana daba socda marka waxaa islaa maanta waa lagu martigelinayaa waan islaa marka annaga martidii waan iga fadhinaa martidiinaan nahay maanta aad baan ugu hambalyaynayaa runtii milkiilayaasha hotelkan aadka u quruxda badan oo runtii mudan hantida la geliyey waan hubaa ganacsatadu waxay ka walwalaan hantida markay investment ku samaynaysa ritaankiisii goormu intee qaadanaya ama see noqonaya laakiin ganacsiga najaxa waa midka dhiiranaanta sameeya adventure-ka sameeya marka waan hubaa haddaan luga ganacsi ku hadlo waxaa la yidhahdaa dhimaan iyo sabara ayaa la isku haystaayo laakiin baahida waa la abuuraa haddaanan baahi abuurin ragga gaarkiis waxbay indhaindhayaan waxay yidhahdaan ma loo baahan yahay horta markaas yadhaan maya dadkan wax iskama bixin karaan looma baahan laakiin haddaad baahida abuurtid kii waxaysa meel kaleu ka imaanaya maaha gudaha jooga keliya marka waan rajaynayaa in hotelkan oo meel ku filan la waayo waan rajaynaya maxaa yeelay waxaan hubaa dad fara badan oon ogahay baa shirarkooda dibadaha ku qabsada meelo badan aada marka waan rajaynayaa inuu najaxo waana ka muuqataa waddadiisii u hayaa waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dadkii gacanta ka geystay mashruucan inuu rumoobo oo kambaniyadii kala duwanaa oo qaybaha kala duwanaa lahaa oo ka qayb qaatay in uu arrintaani hirgasho runtii dowladda puntland waxay u tahay sharaf waxayna noqon doontaa kastamarka ugu weyn ood lahaan doontaan maxaa yeele waa u baahannahay ruuxaddeennu meelaan dadka ku martigelinno shirarka lagu qabto iyagana waa og yihiin oo de howlkan oon dhammaystirnayn siduu wasiirka sheegay annaga ku khasabna hore u furnay wakhtigiisi ka soo hormarnay shirkaas howlkan in lagu qabto macna u sameeyey runtii waana rajaynayaa wixii ka dambeeya in iyaga ruuxaddooda waagaas waa isku yareeyeen howlku waa kuwo intaa ka waaweyn baa la filayay marka maanta waxay u baahan yihiin in loo hambalyeeyo loona baaragyo ilaahay maarata inuu u barakeeyo ganacsigooda iyo investmentigooda annagana aan ugu mahad celinno inay ku dhiiradeen inay dalkooda maalgeliyaan shaqay abuureen bilic bay abuureen fursado ganacsi oo kale dhexdiisa ka dhex abuurmi doona tourismka kor u kici doona dadka serviceka kale u qabanaya dadka imaanaya ayaa badan doona oo iyagana kasii faa'iidi doona mashruucu wuxuu noqon doonaa mashaariic badan oo isku xirxiran marka waan rajaynaynaa idinka ruuxaddiinna wax walba inaydan qaadanayn ganacsatada kale fursado aad siisaan oo aad maaragtay qaybaha ka bannaan aad fursad u siisaan intaa markii aan uga baxo iyaga dabcan uma baanin maanta wax badan inaan halkaa aada uga xusno maxaa yeele waa maalin farxadeed waxaan rajaynaynaa inaan aragno anigu kulley ilaa cabaar baan kusoo wareegayo xoogaa jawi bedel waa soo helnay in yaroo maaragtay jawiyada in jawiga la badto waa loo baahan yahay rag fara badan oo ayaantaan aan islaayna maanta xoogaa waan meesha kusoo aragno waa fadhi fiican bay lahayd marka waa sida la sheegay rag badan baa isku arki doona waan rajaynayaa inaad kastamar fiican heli doontaan waana ku kalsoonahay runtii ragga shaqadaas wada in ay soo jiidasho badan samayn doonaan waxaan keliya aan sugnaa waxa weeye hoteelka oo najaxa dadka oo maaragtay qurba joogta iyo dal joogta hadda waa is aamineen xoogaa awal waxaa ka dhexeeyey herdan laakiin hadda waa is qaateen oo laba kala maarmaayo marka qurba joogtana waan ugu baaqaynaa inay socodka nagu badiyaan diyaaradihii waa fiican yihiin hoteello fiican waa jiraan xoogaagii ay nagu dhaliili jireenna
ورجعنا نقدر نقاول وحدي يجري هذا محن وانا ميل قالوا ما يستان qaarkood waxay dhihi jireen biyo macaan oo lagu qoysto ma leeyahay marka hotelkan waa biyo macaan sidaan filayo marka waxaan rajaynayaa in wax badan isbedeli doonaan bilicda magaalada iyo ilbaxnimada iyo nolosha iyo dawladnimadana wuxuu u noqon doonaa horumarkana qayb buu ka qaadan doonaa kuwaan iyo kuwa la midana inay soo kordhaan baan rajaynayaa baahida kolley weli dawladdu ma gaarin inay kontroosho ganacsiga laakiin mararka qaarkood dhaqankeena waxaa lagu yaqaanaa markii midna juxo in aad la isku daydooda baahida la iska dabagalo advice baan siin doonaa kolley kan iyo dhowr kale horta waa loo baahan yahay laakiin waxaan rajaynaynaa businesska in meelaha diversity dhinacyo kala duwan khaasatan dhinaca wax soo saarka in loo badiyaan aad u rajaynaynaa si dhaqaaluhu isu kabo oo dhinacuusan u dheeliin marka aad baad u mahadsantihiin wax kaloo ini farayna male dad fartoon baad tihiin haddaa fikirkan abuurteen ubax baan si gaar ugu mahadcelinayaayo hadda ragga waxaan umaynaa war qolo la seexda keliya ka fikiraya laakiin maanta dhan meelo lagu raaxaystay noo tilmaamaysa marka jawiga waxbay ka bedeshaan u malaynayaa beeraha iyo jawigaas ayaa ka qiimo badan hurdada marka waan rajaynayaa environment fiican oo dadka wax ka bedeli kara marka ay buuq iyo ka bato haddii meel fiican shaah ku cabaan oo beer leh oo waxaa laga yaabaa fikirku inuu saxmo labadii xoogaa isqabato siyaasiyiinna qolal fiican u sameeyo ay maaragtay